Buugga talooyinka nolosha ayaan ku guda jirnay oo waxaa hore loo yiri talo adaa ku noole eeda kuwama noola. Marka qofkii talo ku siiyey waa qof kula doonaya inay noloshaada fududaato. Anagoo qodobkaas ka duuleyna waxaan kula wadaagayaa talooyin aan u arko inay noloshaada wax badan ka bedeli doonaan haddii aad dhaqan geliso. Haddaad halkan ku cusub tahay waxaan kugu casuumayaa inaad ku soo biirto channelka oo aad subscribe dhahdo, muuqaalkana like saarto si uu meel dheer u gaaro oo walaalka oo talo u baahan uu talo ka helo. Tii aan halkaas kasii ambaqaadno buuggeena talooyinka nolosha talada 11aad. Allah u mahadceli inaad u dhalatay deegaankan. Haddii aan sharaxaad dheer kasii bixino, mar walba Allah subhanahu wa ta'ala wuu ku mahadsan yahay meesha uu ka dhaliyay, sababtoo ah in la kala duwanaado waa sunnada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka ah suuratul Rum aayadda 22aad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. talada 12aad ku taageer ilmahaaga inay beertaan beer yar oo ayaga u gaar ah, sababtoo ah waxay baranayaan dulqaadka iyo inay muhiim tahay qofka inuu isaga kaligiisa wax qabsan karo. talada 13aad si wanaagsan u xarago marka aad masaajidka aadayso. taladan ka sokow 1400 oo sano ka hor ayuu Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay aynu u labisano marka aynu masaajidka aadayno. suuratul A'raaf aayadda 31aad wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku leeyahay yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuhibbul musrifiin. talada 14aad weligaa howl ha u daynin maadaama aadan qaban karin, ee haddii aad og tahay inaad wax uun ka qaban karto keliya qabo inta karaankaaga ah. howsha marka aad ka xaajisan tahay oo aadan rabin inaad wax qabato waxaad samaysaa bilow howsha, kadib waxa dhacaya si tartiib ah ula sii qabso qabashadeeda. waxaad isticmaashaa sharciga loo yaqaano the 5-second rule oo ah sharci kuu sheegaya inaad 5 ilbiriqsi u qabato shaqada kadibna aad ka howlgasho. talada 15aad marka ay saaxiibada ku soo bandhigaan inay ku caawiyaan ka ogolow, maxaa yeelay saaxiibada nafta ay isku huraan kala iskala soo tago in caawimaad yar iyo xoolo la isa siiyo. marka uu ogolow inay garbahaaga taagnaadaan marka aad caawimaad u baahan tahay. talada 16aad dadka ku shaqaaleysii talo suubanaantooda in ka badan inta aad ku shaqaaleysiinayso hibadooda. marka ay arrin ku murugo geliso talo ayaad u baahan tahay maahane uma baahnid hibo uu qof leeyahay. taladan aad ayay muhiim u tahay qofka inuu helo talo wanaagsan mar walba oo ay la soo gudboonaato xaalad adag. waa wax aanan inta badan la heli karin. talada 17aad booqo saaxiibadaada iyo ehelkaaga marka ay galaan isbitaal. waxaa kaaga baxayo waa waqti yar. arrintan waa inuu muhiim haddii aynu nahay dad muslimiin ah, maxaa yeelay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa 5, waxaana ka mid ahaa 5taas arrimood inuu qofku booqdo walaalkiisa haddii uu xanuunsado. talada 18aad arrimaha xaaskaaga kala dhaxeeya ha kaga faaloon goobta shaqada. qofka arrintaas ku dhaqaaqayo waa inuu dib uga fikiraa waxa uu sheegayo iyo waxa ka dhalan kara, oo wax walba oo noloshaada ah inaad dadka la wadaagto. qofka waa inuu lahaadaa xuduud. talada 19aad imtixaanka su'aalaha fudud ka hor shaqee. taladan waxaan maqli jiray intii aan ardayga ahaa oo dhan, waxayna muhiimad leedahay haddii aad isku daydo inaad ka hor shaqeyso su'aalaha adag waxaa kaa lumaya waqti badan, hadhowna waxaa kugu adkaanaysa su'aalihii fududaa inaad waqti u weyso oo waqtigii imtixaanka loogu talagalay uu kugu dhammaado. talada 20aad horta cadeyso inta aadan garabaati xiran. nadaafada afka ayaa ka muhiimsan marar badan nadaafada kore ee qofka, sababtoo ah marka qofka afkiisa uusan nadaafad lahayn way adag tahay inuu dadka la macaamilo, oo dadku way dhibsanayaan inay la hadlaan qof aanay wanaagsanayn nadaafada afkiisa. talada 21aad marka aad la kulanto askari, debdemis, kalkaaliye caafimaad iyo ruux walba oo bulshada oo waxtar u leh, bogaadi oo ku baraaruji inay kaalin mug leh uga jiraan bulshada. dadkaas la soo sheegay waxay inoo shaqeeyaan annagoo hurudna, annagoo iska raaxaysanayna oo qabow iskaga jirna, iyo annagoo ay xaaladda nagu culus tahay. oo maxay naga dhibaysaa ereyo yaryar oo ayaga faa'iido weyn ugu fadhiya inaan ku dhahno annaga oo aysan waxba naga dhibaynin. talada 22aad ha ku arkaan carruurtaada markasta adiga oo wanaajinaya hooyadood, waxqabadkeedana mar walba qadarinaya ha kaaga daydaan. carruurta badanaa waxay waxyaabaha wanaagsan kaga daydaan waalidiintooda, sidaas daraaddeed carruurtaada u noqo qofka ay ku dayan lahaayeen.
dhaqan walba oo aad jeclaan lahayd inay ayaga lahaadaan adigu marka hore yeelo. Talada 23aad aqoontaada iyo waayo aragnimadaada dadka la wadaag, gaar ahaan dhalinyarada. Marar badan marka aad uga sheekeynayso wixii aad soo martay, ayagana waxay u noqonaysaa waayo aragnimo dheeraad ah. Talada 24aad ururada u adeega arrimaha bulshada ka qayb qaado, sababtoo ah dhanna waxay ku tahay waxqabad anfacaya naftaada, dhanna waxay ku tahay waxqabad anfacaya bulshadaada. Marka ku dadaal arrimahaas. Talada 25aad haddii aad qof is-afdhaaftaan, ku dadaal in markasta dhawaaqa codkaaga uu ka gaabnaado isaga dhawaaqa codkiisa, sababtoo ah labadiina haddaad wada qaylisaan, buuqiina iyo murankiina ayaa sii badanaya, balse adiga haddii uu codkaaga hoos u dhigto waxaa hoos u dhacaya murankiina. Marka ku dadaal. Haddaba daawade, haddii aan su'aal ku weydiiyo, talooyinkan aan kula wadaagay midee ayaa ku soo jiidatay? qaybta commentiga ku soo qor.